dhibaatooyinka dunida ka jira ma ahan kuwa aynu halkan ku soo koobi karno waxaynu markaa astaa maqalnaa waxyaabo lama filaan ah magaalo ku taala koonfur dalka China waxaa ku nool haweeney qabta xanuun aan horay loo arag oo ka hareeray dhinaca maqalka haweeneydan ayaa waxa ay maqli kartaa codadka haweenka oo qura balse ma maqli karto codadka ragga dhibaatada noocan ah ma ahan mid ay ku dhalatay haweeneydaasi sida lagu baahiyay majalada Daily Mail haweeneydan ayaa seexatay kadib subaxii markii ay soo toostay waxa ay maqli kari weyday codka saygeeda intaasi kadib waxa la geeyay dhakhtarkaasina waxa uu sheegay in dhibaatada dhinaca maqalka ah ee ku dhacday gabadhan ay soo wajahdo 13,000 ee qofba hal qof oo kamida waxa aad u adag in xaaladda noocan oo kala ah ay dhaqaatiirtu ogaadaan sababtuna waxa ay tahay in dhaqaatiirta badankood xaaladda noocan oo kala ah aysan wax aqoon u lahayn